بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamay asxaabta qaaliga ee ku xiran channelkeena Lovely meel kasta dunida daafeeda aad ka joogtaan. waa mar kale iyo Lovely channel iyo muuqaal cusub, video cusub, alaab wada cusub. maasha Allah saad horeba nooga barateen. maanta Lovely channel waxay idin hayaan alaabtaas cajiibka aad arkayso. yaa haddaad rabtid inaad ogaatid videoga bilow iyo dhamaystir la soco. alaabtan qaybta hore pizza ayay u eg tahay, qaybta dambena cake ayay u eg tahay. yaa ma pizza cake baa markaa? yaa su-aashaas jawaabteeda videoga bilow iyo dhamaystir la soco. alaabtan waxaa la dhahaa fatiira macal jubna macal qishta macal casal. yaa waa kan haddaba halkaa waxaan ku haystaa laba koob oo burka brownka ah, laba qaado oo caanaha booraha oo daadsadaha ayaan si adag oo rasiina usoo qasay, biyo yaro diiran baan kusoo qasay. koob nuskiis ayaan ka dhigay, koobka muu buuxin, xooga muu buuxin. hal qaado oo sonkor ayaan ku darsaday. haddana waxaan ku darsanayaa qaado oo baking powder ah, qaado baking powder ayaan ku darsaday. intaas waan saddex gelinayaa, kadibna waxaan ku darayaa hal qaado oo bur ah. burka cad waad isticmaali kartaan asxaabay, maaha qasab maaha burkan brownka anigaan isticmaalay inaad isticmaashaan. xaqiiqada markaan idin sheego burka cad ayuu kaga macaan yahay. waxaan ku darsanayaa iis ayaan halkaa ku haystaa, hal qaado iyo nus oo iis ah. oo qaadadan isticmaalaya waa qaadada yar ee shaaha sonkorta lagu qiyaasto. intaas saas ayaan isku dhexgeliyey. kabacdina waxaan sameynayaa bac ayaan afka kaga xidhayaa, kabacdina tuwaal ayaan dusha ka saarayaa insha Allah. waxaan sugayaa 5 daqiiqo. asxaabe meel qabooba haddaad joogtaan meel dugsoon geliya. tuwaalka markaad dusha ka saartaan meel xoogaa yar dugsoon geliya. dadka sidoo kale meelaha kulaylaha jooga 50 degreega uma baahnidin ba xataa easy waxayna ku darnaa anaga uma baahnin. yaa kulaylka socdo dartii wax kasta halkaa dhigtid markiiba uu khamiirayaa. okay 10 daqiiqo ayaan insha Allah sugayaa. waan isku soo noqonaynaa 10 daqiiqo ka bacdi waan isku soo noqonaynaa. hawsha inta kale aan bilaabanaynaa. 10 daqiiqo ka bacdi saas ayuu noqday. ma rabo inuu xoog iga soo faxo sida rootiga marka la sameynayo kale. alaabtan rooti ma rabo inay iga noqoto. halkaa 2 qaado oo saliid olive oil ayaa iigu jirtay aan ku darsaday. 2 xabo oo ukunana waan ku darsanayaa. yaa wax yar oo cusbo ana waan ku darayaa. wax yar oo cusbo waan ku darsaday, waad ujeedaan asxaabey. waxaan ku darsanayaa waxa ujeedaan waa xabatu sawda ama xabaasuud iyo nus qaado yar oo heel shiidan oo qaybta tastigeeda dhanka. insha Allah intaasaan si fiican isku gelinayaa. burkii oo dhan ayaan gab ku siiyey. qiyaasta waa inaad la socoto burka aad haysato iyo biyaha aad caanaha aad shubanaysid waa inay isku qiyaas ahaadaan. aniga way ii qiyaasneed, bur dambe kuma darayo. intaas wax dambe uma geynayo, intaasaan ku qasayaa. ila socda asxaabay. muhiimada fatiira yaa aad sameynaysaan. muhiimadu waa in aad si fiican gacanta ugu xoojisid oo si fiican u xashtid. maasha Allah quraac kaale araga, casho kaale araga, casariye, xataa casuumadaha waad ku darsan kartaan maasha Allah. haddii aad waxaan ku leeyahay caruur siisanaysaan burka cad ku sameeya si uu idinku qurux bato. burka brownka waxa dhan brown bay isla noqonayaan ma ogtahay. maadaama aniga jecel burka brownka markasta, xitaa rootiga markaan sameysanayo burkan brownkan ka sameeyaa. laakiin burka cad ayaa laga qurux badan. si fiican ayaan u xashayaa insha Allah. haddaan dareemo gacanta inuu iga dhegdhegayo saliid yar baan gacanta marsanayaa. waa kaas saas ayaan usoo xashay. waxaa la rabaa inaad si fiican ugu xoogsatid. yaa muhiimada markaad sameynaysaan rooti ama pizza ama wax kasta oo la xashay markaad sameynaysaan, marka aad gacanta u badisaanba yaa way idin fiicnaanaysaa oo waxa kule waxay noqonaysaa wax jilicsan. waa kaas hadda waa diyaar insha Allah. xogaa
gacanta iga yara dhigdhigtay waxaan sameynayaa gacanta saliid baan marinayaa weli waan ku wadaa xashitaankii ilaa 10 daqiiqo ayaan xashayay waxaan sameynayaa hadda waa diyaar bac ayaan afka kaga xirayaa waxaan sugayaa 10 daqiiqo kale ma rabo xoog sida rootiga oo kale inuu iiga soo faxo ma rabo 10 daqiiqo ka bacdi waan isku soo laabanaynaa asxaabey waan soo laabtay halkaa waxaa igu jira waa qishta waa kaas qishtadaas ayaan u baahanahay qishta haddaanad oolin wadanka aad joogtid dhibaato male yaa bashameelo ayaad samaysanaysaan caano iyo batar iyo waxaad isku karinaysaan warango yaa wax yaroo heylana waad ku daraysaan maasha allah saas ayuu kusoo baxayaa markaad qaboojisaan qishtadaas ayuu kusoo baxayaa qishtada waa si fiican ayaan u qasayaa alaabta aan sameynayo iyo qishtadan xabada yar aan isticmaalayo way isla egyihiin haddii aad wax badan sameynaysaan qishtada badan xabad weyn oo qishta ama laba xabo ayaa idinku filnaanaysa insha allah hadda burkii ayaan soo qaadanayaa burka laba siyaabood ayaa waxaan ku leeyahay loo waxda asxaabe khafiif waad ka dhigan kartaan buur si buurana waad u qasan kartaan waad u lawaxan kartaan aniga waxaan jecelahay shaqsi qofba wax uu jecel yahay aniga haddaan biitsa sameynayo haddaan fatiiro sameynayo haddaan wax kasta sameynayo waxaan jecelahay cajiinkayga inuu ahaado cajiin buuran yaa khafiif imika tan aan halka xaba ka dhigay laba xaba waad u kala qaybin kartaan khafiif haddaad ka dhigtaan iyo haddaad aad wax buuran ka dhigtaan oo fig ah isku si un bay noqdaan dhibaato male dadka qaarba waa si qaar waxay jecel yihiin khafiifka qaarna waxay jecel yihiin kuuskuusan aniga kuuskuusan sidan kuuskuusan ayaan jecelahay baalkii ofanka aan ku gelinayay ayaan soo qaatay saliid yar ayaan marinayaa waan wada gaarsiinayaa saliidda cajiinkii ayaan ku ridayaa hadda uma baahni gacantayda ayaan ku simayaa maraba meel buuran iyo meel khafiifa inay iga noqoto gacanta ayaad ku garanaysaa markaad saa u taabanaysid midda kale maadaama qishta iyo alaab kale aan ku darayo waxaan rabaa xoogaa sidii digsi camal inaan ka dhigo oon xoogaa yara kor u yara qaado cajiinka si in yaroo godan uu banaanku in yaroo godan uu wax kasta ii celinayo aan hoosta ahaado waad ujeedaan saxaabey sidaan kor ugu yara qaado cajiinka hadda waxaan sameynayaa qishtadii oo dhan ayaan ku darayaa si fiican ayaan u gaarsiinayaa waan wada gaarsiinayaa qishtada waxaa kaloon haystaa cream cheese-kaan isticmaalay waa ka rootiga la marsado ee baqara daaxika miyaa la dhahay xabada yaa haddii jeer rootiga markaa la cunayo kale sliceka la dhex gashado qaybtii caanaha markaan qasay caanaha freshna waad ku samaysan kartaan asxaabe caanaha zabaadiga ama yogadka waad ku samaysan kartaan isagana waa kaa cream cheese-ka aan isticmaalo waxay la tahay qof kastaba uu yaqaanaa meel kasta uu yaalaa waa kaas baqara daaxika ayaa anaga la dhahaa carruurta jecel hadii jeer keligiina waad cuni kartaa maasha allah waa caano fadhiya okay cream cheese-kaas ayaan hadda waxaan sameynayaa waan jarjarayaa waan jarjarayaa waxaan ku leeyahay wax kastood ku darta macaan ayuu ka dhigaa maasha allah cream cheese-kan aad ayaan u jecelahay aniga xitaa rootiga markaan isticmaalayo aan quraacanayo subaxii ama aan casho u cunayo isagaan marsadaa maasha allah kaale iska arag weeyaan qasab ma aha asxaabey creamkan waa dheeraad cream cheese-kan hadda aan ku darayo baqara daaxikadan waa dheeraad uma baahnid ba hadda rabtid waad ka daynaysaa haddaad rabtana waad ku darsanaysaa sidaydoo kale aniga waxaan jecelahay testigiisaan jecelahay saasaan ugu darsanayaa
wax badan kuma daraya hareeraha iyo dhexda iyo waasasaan u gargaarsiinayaa. waxa kaloon haystaa asxaabey sisin aan soo dubay. sisinta marka la dubo udgoon aad u fiican bay yeelataa. wataas si fiican ayaan ugu daray. waan soo dubay sisinta, waan ku wada daray, waan wada gaarsiinayaa hareeraha, geesaha, dhexda, meel kasta inaad gaarsiiso ayaa loo baahan yahay. intaas ka bacdi waxaan ku darayaa casal ayaan ku darayaa, sorry, malab ayaan ku darsanayaa. malabka ayaan si fiican ugu darayaa. kabacdi waxaan sameynayaa, waxaan ku darsanayaa cheese, mozzarella cheese ayaan haystaa. cheese ayaan ku darsanayaa. waad ujeedaan mozzarella cheese-ka xoogaa ayaan ku yar badiyey. ovenka ayaan gelinayaa hadda. ovenka waxaan ka dhigay 180 hoosta, qaybta hoose 5 daqiiqo waa inuu karo. kabacdi ayaa dusha ka furaysaa. saas ayuu soo baxay asxaabey. waan kasoo bixiyey ovenkii 15 daqiiqo ku jiray ilaa 20 daqiiqo. wuu kulul yahay weli. intuu kulul yahay waa inaad malabka ku dartid, maadaama fatiir macal casal ay tahay. uu casalka ku jiro, malabka ku jiro. malabka marka hore markaad saa uga soo baxdid, uga soo bixisid ovenka ayaad ku shubaysaa. asxaabay ila socda. marka ovenka aad gelisaan qaybta hoose ayaad shidaysaan 7 daqiiqo meelahaas ilaa 5 daqiiqo ayaad xagga hoose waa inuu kasoo bislaado. markaad aragto cheese-kii aad korka kaga dartay inuu xoogaa dhalaalay, ayaad waxaad sameynaysaa labadaba waad shidaysaa, kor iyo hoosba markaasaad ka dhigaysaa. waad fahanteen si uu idinku soo baxo alaab yar oo xagga hoosena aad u qurux badan, maadaama korka aan cheese iyo cream cheese iyo alaab aan korka kaga darnay. marka waa inuu hoosta aan ka bisleyno. saas ayaa hoosta marka hore dabka loogu shidaa. waan jarayaa hadda. waad jeedaan waan jarayaa. creamy cheesy kale arag. wallaahi billahi waad ka helaysaan. anaa idin iri yaa aad ayaad uga helaysaan. keeg ayaad moodaan marka aad cunaysaan, maadaama bikin ku jiro. jubnada iyo qishtada kale arag say uga soo baxeen. tastiga iyo udgoonka xaafadda 5aad ayaa laga soo urinayay. malab ayaa isagana xitaa meeshii ku jira. sabiib ayaan ku daray asxaabey, raalli ahaada. sabiibta markaan ku daray idimaan tusin. ovenka intaanan gelin ka hor ayaan sabiib yar saa dusha ugu daray. markaas sabiibta laftirkiisa waad ku darsanaysaa. isaga laftirkiisa waa healthy maasha allah. waad idin tusayaa asxaabay siduu u go-ayo iyo sida uu noqdo ila arka. okay, waa kaas. saas ayuu kusoo baxay. siduu u go-ayo waad ujeedaan maasha allah. xagga hoose waad ujeedaan siduu noqday keeg. macaanka iyo tastiga maasha allah anaa idin dhimanaya. bismillah. aad iyo aad ayuu macaan yahay, maadaama uu waad ujeedaan xaggii qaybtii hoose siday usoo baxday. cream cheeskii alaabtasay soo baxeen waad aragtaa. maasha allah. waa quraac healthy ah oo heer sare ah. casho ayaad ka dhigan kartaa. keeg tastigiis waa sida keeg oo kale, laakiin keeg ma ahan. waad arkayseen saan u sameeyey. maasha allah wey. waa alaab yar oo maasha allah ah. quraac yaroo eshcala ah. qada yaroo qada ma noqon kartee. way noqon kartaa qada laftirkeeda. casho kaale araga casariye marti hadday ku timaado kale waad ugu soo tuuri kartaa. 1 2 3 weeyaan. wax culaysa kuguma qabanayso. quruxda waad aragtaan asxaabey siday soo baxday. sabiibkii siduu uga dhex muuqdo, jubnadiisay uga dhex muuqato maasha allah. tijaabiya caruurtiina ku tijaabiya, waad ka heli doontaan.
maasha allah casariyo kaale araga wata biitsaad moodaa xagga korkan waa inay saa u ekaato korka waa kaas biitsa korka waa eg tahay xagga oo hoostana waxay u eg tahay cake testiga iyo siduu u go-ayo maasha allah sida rootiga uma go-ayo sida keega u go-aya waad aragtaan maasha allah waad ka faa'iideysan doontaan asxaabey naftiina uga faa'iideeya caruurtiina uga faa'iideeya yaa si u go-ayo waad aragtaan sida keega oo kale ayuu u go-ayaa maasha allah testiga macaanka dhadhanka qishtadii iyo jubnadii waad dhadhaminaysaa casalkiina waad dhadhaminaysaa kaale arag maasha allah asxaabey gabdhaha youtube-ka oo dhan insha allah tijaabiya waad ka heli doontaan maasha allah yaa caruurta uga faa'iideeya casariyo yaroo khatar weeyaan yaa waa casariyo heer sare ah quraac ayaad uga dhigi kartaan qada ayaad uga dhigi kartaan haddaad rabtaan casho ayaad uga dhigi kartaan martida ayaad kusoo dhaweyn kartaan wax allaale wax ay diideyso malahan waa juicy qalayl ma ahan wax qalayl oo dhuunta ku istaagay male sida rootiga oo kale maadaama malab iyo ay qishta ku jiraan dheecaan buu leeyahay qoyaan male afka markaad gelisid waxaad dareemeysaa yacni juuskii oo creamka qishtada ayaad dareemeysaa qishtada waad ogtihiin dhadhankeeda maasha allah yaa waa kaas sidaas ayuu kusoo baxay asxaabe insha allah ka faa'iideysi wanaagsan like-ta commentiga wixii aad qabtaan hoosta igu reebo insha allah waan idinka soo jawaabi doonaa like-ta yaa subscribe-ka haddaydan hore noola joogin nagu soo biir tiimka Lovely kusoo biir gambaleelkana furo si aad ogaatid waxyaabihii ugu dambeeyay aan soo gelino si aad ogaatid daawadaha koowaad insha allah gambaleelka taabo asxaabey usii shaargareeya asxaabtiina faamiligiina si ay uga faa'iideystaan ay caruurtoodana uga faa'iideeyaan insha allah idinka laftirkiina tijaabiya wuu idin hagaagayaa insha allah aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashada videoga asxaabta qaaliga aad ayaan idinka mahad celinayaa maasha allah sida aad noogu xiran tihiin iyo si aad waxaan ku leeyahay mar walba noo taageertaan anagana insha allah inta taagay inta karaankay waxyaabo badan oo waxaan ku leeyahay cusub yaa ayaan idin soo gelin doonaa ma ahan canjeer maalin kasta caruurta in lagu quraacsiiyo ama rooti dukaanka looga soo gado oo lagu quraacsiiyo isku day waxyaabo kala gedisan inaad caruurta ku nafaqaysid aad ayaad u mahadsantihiin insha allah khayr iyo baraka ayaad idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu